يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله أيها المسلمون، الله تبارك وتعالى بني آدم كوحو قليي امتحان درسي شهوات فربضا، شهوة حولها، شهوة عرورتا، شهوة قلمدا، شهوة مقعة، شهوات فربضا. لكن شهوات كبني آدم كإلهي قليي كوا ugu khatarsan waxa kamid ah hadayna ugu khatarsanay shahwada milkiga iyo madaxnimada iyo kursi raadiska iyo boqortooyada. Iblis markuu aabaheen aadam fitnayn rabay, waswaasin rabay si uu jannada uga soo saaro, halka irid ee uu fahmay inuu ka gali karo waa laba iridood. irida koobaadi waxa weeye waa milki jacayl, irida labaadna waxa weeye waaritaan iyo jiritaan jacayl. saas daraadeed markuu sirahayay wuxuu ku yidhi yaa aadamow hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa, ma ku tusaa geed haddaad cunto aad waari oodan dhimanaynin, boqortooyo iyo kursina aad heliyood ku waari. ibliis wuxuu fahmay aadamaha meelaha laga galiyo iridaha ugu muhiimsani inay tahay kursiga iyo boqortooyada. meeshaasuna aabaheen aadam calayhi wacalaa nabiyina salaatu wassalaam ka soo galay oo uu dantiisii ka gaadhay oo jannadii laga soo saaray oo dhulka layna keenay oo rafaad iyo aafada ina haysataay ilaahay inoo qoray. nabigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu inoo sheegay in manaasibta iyo kuraasta iyo madaxnimada aad ku dadaali doontaan. sataxrisuuna cala alimaara, madaxnimada waad ku dadaali doontaan, dadaal adag baad u geli doontaan adduunka intaad joogtaan. maalinta qiyaamadana waxay noqon doontaa qoomamo iyo nidaamo iyo farta inaad dhexda ka qaninto tiraado allow maxaa ii geeyey. macaanaa markay ku nuujinaysood naaskeeda jaqayso magacii iyo jaahii iyo maalkii iyo amartaaglayntii iyo rooggii casaa iyo sacabintii فنعمة المرضعة ناس كذي بتشقيسا وبئست الفاطمة بن النبي صلى الله عليه وسلم مركي كو جويسو ناس كا جويسو دب يا آفة مركاسي كو هيستا إني كو جويني سنة شكي ملا أهو وليجد ناس كذا نوجي ميسد وكل جنان ميسد مالين كسر ناس كأي كاتشر تعلقوا شوجا مدحني مدو ومدة ونينكو ilmihiisa u dilo. imisa nin wiilkiisa u dilay kursigii buu ku qabsaday, imisa ilmo waalidkii u dilay kursi dartii, imisa nin xaaskiisa u dilay kursi dartii, imisa xaas ninkeeda u dishay kursi dartii. dadka kuwaad ugu jeceshahay ood cuntada iyaga ku hormarini, ood magaca la jeceshahay, oo aad wax walba u huri lahayd, markay noqoto inay kursi kugu qabsadaan waad khaarijini, uma quudhid. kursigu waa shahwada ugu halisan bini aadamka shahawaadkiisa. sidaas daraadeed markay timaado ruuxa muslimka waxa la doonayaa inuu taxadarkiisa qabo. war meeshani waa meeshii lagu halaagsamay. taariikhda markaad dib u akhrido oo sijillaadka taariikhda aad soo rogto, taariikh gaal iyo taariikh muslimba, caalamka wixii fitna soo maray intooda ugu badan waxa sabab u ahaa kursi iyo raadintiisa.
jagada iyo madaxnimadaasi mid ku fadhiya iyo mid ka riixanaya oo raadinaya baa adduunka soo rogay taariikhda akhriya ilaa maantana adduunka waxa rogaya taas waay inta markaan ogaano miisaal aynu soo qaadanno qawaacidda miisaalka cadeeya tusaalayaashu maanta waa farabadan yihiin adduunkiina waa isu furmay wax qarsoonna ma jiro caamayguna waa dhagaysanaya waa akhrinaya culimadana warkooda iyo aqoon-yahanka iska badaa adduunka maanta wax qarsooni ma jiro kii hore wax kala qarsoonaayeen ma ah laakiin haddaynu tusaale soo qaadanno Soomaaliya u soo qaadanno waddankaas maanta xaalkiisu saa u yaalo la qaybiyey oo qaybsan la burburiyey oo burbursan dadka ku nooli intooda badan faqriga khadkiisa ay ka hooseeyaan dhalinyaradiisii ay badaha ku baaba'ayso farigelin shisheeye la liicaya oo cid walba doonaysa inay dantiisa ka gaadho mujtamaciisii uusan is haysanin dalka saa u yaala ee dhibkaasi haysto ayaa maanta koox yari ku hardamaysa hal kursi waxaad isweydiisaan dalkan maxaa halkaa dhigay waxaa halkaa dhigay niman kursi raadisa oo kadibna magaca qabiil huwaday oo isticmaalay iyo mid kursi ku fadhiyo u quuri waayay iyo shacab aan wacyi lahayn oo la isticmaalay saddexdaasaa isugu darmaday dalkan oo uu burburiyey saddexdii burburisay baa maanta 30 sano kadib meeshii laga biloobay baa dib loogu noqday reer bani Israa'iil baa Ilaahay wuxuu ku sheegay 40 sano inuu Ilaahay ku imtixaanay tiih iyo jahwareer meeshay subaxdii ka guuraan bay galabtii ku soo noqdaan say u wareegaysanayaan meeshii baynu ku soo noqonnay luqaddu waa luqadii damacu waa kursigii waxa la isticmaalaya waa qabyaaladii luqaddu waa luqadii xasaasiga ahayd ee Soomaali laga taaban jiray meel laga rogaa jira furaha laga rogo waxa kale oo dhan ma diiriso laakiin marka la yiraahdo gobolkeena reerkeena deegaankeenna qabiilkeenna jifadeenna taasaa rugaha ku rogta furaha ku rogo furuhu waa kaa furuhu waa furihii hadalku waa hadalkii raggu waa kuwii kuraasta raadinayay meeshii baan maanta joognaa shacabka wacyi la'aantiisina waa dheerta iyadoo waa sideedii waxaan jeclahay 3 farrimood diintu waa naseexo 3 farrimood inaan u diro 3 jiho oo hawshaasi khusayso jiho waa qolada kuraasta ku fadhida jihana waa qolada doonaysa inay ka kacsadaan jihana waa shacabka miskiinka ee masaalixdiisa lagu ciyaarayo qolada kursiga ku fadhida waxaan leeyahay haddii 1000 sano bal kumanaan sano lagu daayo nolosha lagu daayo kursigaana lagu daayo faraha lagaaga qaado waxa xaqiiqa inay imaan doonto maalin aad ka tagi doonto ama isagu ka tagi doono maalinkaana mas'uuliyadiisii iyo tabiicaadkiisii ilaahay hortiisay ku taala way ka horeysaa nin xilkas ah oo mas'uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhagdhago kursi Soomaaliyeed ya maanta cidiyaha kuma dagaalamo si uu kursi ugu fadhiyo ama u fuulo laakiin xilkasnima jirta xil baan la garanaynin sidiisaba wuxuu yahay marka waxaad ogaataa kursi ma baaqi ahaado nololina ma baaqi ahaato fariinta labaadan doonaya inaan u diro wuxuu yahay waxay tahay bini aadamku hadduu quraanka ilaahay soo dejiyay iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan ka warhaynin
waxaa fiican inuu kuwaana qaato dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee ishiisu qabanaysa uu akhrinayo. maanta wax way 20 jir ilaahay uma xilqarinin xawaadista adduunka ka dhacayay waa aayaad ilaahay oo taagan weeye wax lagu qaato waay. war aaway raggii kuraasta isku dhajiyay xaggay ku dambeeyeen ee cuquud min as-siniin ka talinaya caalamka meelo ka mid ah. زين العابدين كي تونس آوي شين العابدين ده آوي بوتفليق الجزائر آوي مبارك مصر آوي علي عبد الله الصالح يمن آوي قدافي أفرتن سنة كبدا بليبيا كتليني آوي ور آوي مدحدي أدونك واتقان ما أنت هدان هيلي له وحي نوغصو ورما وحا قبرك كو هايستا iyo ilaahay hortiisa waxay la tagi lahaayeen wax badan baa la inoo sheegay laakiin lagu waan qaadan maayo. ninka kursiga ku dhagan waxaan leeyahay kuwaana qaado qeyrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badan aad ogsoon tahay. fariinta saddexaad waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso, sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiiggiisa inuu daato. waxaan ku xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto, iska dhaaf in la dilay, in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keliga oo qaawan adaa mas'uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal. tanaasul kursiga lamadan dhalanin kulamana dhalanin. ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa, danahaaga khaaska baa looga tanaasulaa. tanaasulku waa khayr iyo maslaxo. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kama fi saxiix albukhaari wagayri maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya wiilkiisii xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay mimbarka. nabigu waa jalleecay sala allahu calayhi waaalihi wasalam. markaasuu wuxuu yidhi nabigu sal alla alay wasalam wiilkaygan waa sayid buu nabigu yidhi sal alla alay wasalam. ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiinoo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo. xasan ibni cali ibni abi aalib sanadkii 4tanaad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii la isku hayay muaawiyah ibn abi sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma. sanadkana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta caamul jamaaca. xadiidkii bishaaradii nabiga xaqiiqowday wiilkaygu waa sayid, ilaahayna ummadda muslimka buu ku islaaxin doonaa. sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado oo nin kursiga xoog lagaga qaatay sharaf male, nin la eriyey sharaf male, nin ummadiisa u tanaasulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduun iyo aakharaba. tanaasuloo maslaxada u tanaasul. fariinta labaadii waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacowday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas, ayaguna ku fadhiistaan. fariinta koowaad aan u diraya waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya cidduu doonuuna siiyaa. qul illaahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaau watanzicu almulka miman tashaa. dagaal iyo dadaal loo galayna laazim maaha in kursigaa lagu gaadho, midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa. mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa. ilaahay baa hayoo gacantiisa ku jiroo bixiyee bal horta rumeeya. waa midda labaade kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado, 10na ma qaado, 7na ma qaado, hal buu qaadaa. kursigaa halka qaada waa midkii soomaaliya intay isku laysay la qaybiyey
oo gaaladu intay u sameeyeen landis fulaan lagu qanciyey adiguna madaxweynaad tahay kursigii ayaa markii uu ku wada fillaan waaya waxay noqotay in 10 kursi oo kale la soo saaro oo lagu qanciyo la yiraahdo landis kana madaxweyne fulaan war kursigu waa mid ilaahayna ninbuu u qoray هذه حقيقة بيها كما دبعاوها مدة الصدحات اللي وحي تهي إن بدن أو كرسي رادي سو كوهن قودي باتشتا دنبنا كالراعي إمي سآوي دقال أوغياشي آوي دات رقي دال كان سو بربوريي كرسي الرادين آوي انت كرسي كغفري ستي ويريهن كل قودنا وحي قاتين وحي دلك كرعي إلهي بين الله ارتقيان ميدان كوانا قادنين ميدان وحكو قادنين وحن ليا هاي لقد قبيالة دايا هذا الكحنفت لدايا فتنتك انت هذا كفوقادا سي مسؤولية دي كتشرت الرقمة يا ذلك أطرا ذلك أطرا ظروفت أمد هيسة أطرا إلهي كبقى قبيالة لقوع العلينيو إلا كعنيو إلا لقوها الليو إلا لقو دارنيو ورصوتي هالكاينة دكتي معه ورصوتي أنكوهم قوني معه ورصوتي أنكو تشبني معه ورقورمي شاتي كلا إنا سو حراتي صدن سنة كدب قورمي شاتي كلا سو حراتي سو إيدي أون معه وإيدي لكن وجه يدا اسبدلي شلي وحي هي جنرال فلان بوها شلي ما أنت نوا سياسي فلان لكن واحد قالوا اسبدلي ما تشرو وعن لا فتنها أبابلنا آفنا دلك يدتك صوها ونقننا شرنا هرسيدها ونقننا فتنة لما ردميو شرنا اللي اسكمت دريريو وان لقى فقادا وان لقى تحدرا كهرتك بوليه كدبتك مله آفدو هذي هرطي هلا عدنا نوال بيسا ميسا دروس تيدنا وانو هينا waxaan leeyahay oon ugu dambaysiinayaa kalimaadkan qolada ku leeyahay ummadan aad isu keenaysaan leedihiin mudaaharaad sameeya oo saaxadaha iyo banaanada aad isugu keenayseen leedihiin dastuurka noo ogol war waxaan idin leeyahay meesha waa muqdisho war waxaan idin leeyahay muqdisho idinka naga yaqaana war bishiiba intaasoo qarax baa ka dhaca war maalinkiiba intaasaa lagu dilaa war magaalada hubbaa dhexdeeda yaalloo ku faafsan war kooxa dadka laayaa tifka ah ama diin ha sheegteen ama kuwo kale ha ahaadeen war way fududahay dadka isu imaanaya dhexdooda in balaayo laga qarxiyo war mid baa ku dhex dhuuman karo isqarxin karaya war mid baa ku dhex dhuuman karo oo dadkan kada taxabadayn karo layn karaya war ayagaydan kontrooli karaynin oo haday dhaqaaqaan xoolahana burburini hantidana burburini oo boob iyo dhacba iimaanaya hanti la burburiya iimaanaysa mana kontrooli kartaan dawladina ma kontrooli karto been waay ya dawladaha waaweyn baa kontrooli kari waay mudaaharaadku markay dhaqaaqaan dadkan waxa ku jira dad xilma kas ah dad waxa ku jira wax booba isaabaad ijraan baa ku jira ya war Mareykan baa kontrooli waay oo Faransiis baa kontrooli waay oo Ingiriis baa kontrooli waay oo dawladii xoog badnaa baa kontrooli waay ummadu haday dhaqaaqdo lama kontrooli karo waxa dhici karana ma saadaalin kartaan isweydiiya mas'uuliyadda qaadi doona isweydiiya yaa mas'uuliyadda qaadi doona markaad ummadan ku khamaaraysaan oo kaliya ujeedadiinu ay tahay inaad ku abuurtaan كلية بريشر أتكو أبورتان قلدا إذن كسو هرشيدا ووحن اللي يداهدو محوء هاي عالمك أبورتان بريشر كو أبورتان وجديد إنه إنت هاي واحد دعي كرا يديق دادن كرا يا آفد إيمان كرتا يا هنتيدا بربوري كرتنا
aad wax badan ka ogsoon tihiin maxaad u khamaaraysaan maxaad dhiigga ummadda ugu khamaaraysaan maxaad masaalixdeeda ugu khamaaraysaan maxaad hantideeda ugu khamaaraysaan bimujarad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaan dastuurkaa qaba waa xaq dastuuri ah war dastuurkan qabayo waa kee ma kii gaaladu idiin dejisay soo ma ah kii idinkala qaybiyey soo ma ah kii laandhiska idinka dhigay soo ma ah dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba caqligiinni iyo wacyigiinnu hadduu heerkaa joogo maanta aad garan la'dihiin war maxaa imaan kara maanta ummadda meeshaa laysugu keenayo maxaa ka dhalan kara aad qiyaasi la'dihiin masaladu masale siyaasadeed maaha masale dowlad loogu hiilinaya maaha mas'aladani waxa weeye waa muslimiin lagu khamaarayo dhiig yar oo ruux muslima ka daata ayaa ka muhiimsan dhiig yar dhimasho maaha dhiig muslim oo daata oo dhaawac ku daata ayaa wallaahi uma wallaahi ka muhiimsan kursiga iyo waxay u ordayaanba nebi maxamed baana sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa war aakhiradiinna ilaaliya war ummaddan ha ku khamaarina war dalkan dhibka ka daaya war waxaan kadaata farsameeya war isu tanaasula war tartiib u wada hadla war wixii maslaxa isla xaqiijiya war damiciinna dib u liqa masaalixdii damiciinna khaas ka ah maslaxada dalka iyo dadka ka hormariya ilaahayna uga baqa tabaaraka wa tacaala fariintayda ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo shacabkan miskiinka ah ee lagu ciyaarayo ee maalinna magaca qabyaaladeed loo soo huwanayo maalinna magacyo kaleeta loo soo huwanayo rag damac iyo kuraasi iyo shahwo kursi haysana ay maalinba dab ku daadinayaan shacabkan miskiinka waxaan leeyahay shalayna wixii meeshaa ina dhigay waa wacyi xumadeenna nimankii jabaadaha hogaaminayee gaaladu ay soo taageertay ee dalka burburiyey waxay inagu kacsadeen qabyaalad iyo ree hebel markaan gubannayna innagaa dabkii ku gubannay maantana waa sidii weeye cidda guban doonta oo dabka ku guban doonta waa innaga waa shacabka waa hooyada waa carruurta waa ardayga wax baranaya waa curyaanka war innagaa gubanayna waa dalkeennii waa deegaankeenii innagii baa gubanaynoo dab ku daadanayna maslaxadeena inaan garanno waayo inay isaga keen khaldamaan ma aha cid maslaxadeenna ficlan ka shaqaynaysoon dan inugu wadanin iyo nin dantiisa wadoo kursi doonayo awrka inugu kacsanayaa inaan kala fahmi weyno waa wacyi xumo in layna yidhaahdo soo baxa oo khatarta u badheeroo sidii dab laynugu dabaalalay oo kaleetana waa wacyi xumo inaan gacmaheenna ku burburina amnigii dalka iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisuna waa wacyi xumo aqoon darrada iyo wacyi xumadaana waa wax laynooga faa'iidaystay waxaan dhihi lahaa danteenna aynu garanno nabigeennu wuxuu ku taliyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh fitanka ka fogaada meesha ay ka dhacayaanna ka durka ha isku dheerarinina hana dhudhuminina ciddii shanta la gasha tobankay la geli maxaad u dhimani maxaad dabka u geli maxaad laguu dili maxaad dhiiggaaga u daadin maxaad isu rafaadin maxaad heli qoladan kursiga doonaysaay shalay bay hayeen qaar ka mid a maxaa kuu soo kordhay bal isweydii kan hadda ku fadhiya markuu imaanayey sacabkaad u tunteenoo waxaad tidhahdeen farmaajo iigee maantana waxa weeye halkaasay maraysaa war midina malab idin daaqsiin maayo midina dhulka cagaar idinka dhigi maayo ninna shidaal idiin soo saari maayo ninna duruufihiinnan ka jawaabi maayo iyo aafada idin haysata ka jawaabi maayo aan idiin sheegay danteenna aynu garanno fitankana aan ka fogaanno yaan layna isticmaalin ayagana wixii maslaxa aan kula talin oon gacanta qabanno gacanta inaan qabanno warkadaa dalka annagaa leh annaga lexjecla naga haysa haddayna adiga kaa haynin
hadday ogaan lahaayeen shacab is-hortaaga hadduu jiro inuu jiro hadday ogaan lahaayeen shaki kuma jiro waxyaalaha qaarkood way ka gaabsan lahaayeen laakiin waa layna tijaabiyey waana layna arkay marka waxaan leeyahay wacyi aan yeelanno masaalixdeenna aynu garanno danaheenna aan ilaashanno nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sheegay markay fitanku kacaan oo aafaadku sidan oo kale u istaagaan danahaaga khaaska aad danta caamkaana isaga tag nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh danahaaga khaaska aad dukaankaaga aad ganacsigaaga aad hawlahaaga aad mudaaharaad iyo kursi iyo orod iyo qajajac iyo isaga tag dantaada ma ahe ka danayso yaa leh macnaha nebi maxamed baa leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa haddaynu yeelaynaynu qaadanayna isagaana dantu inoogu jirta meesha maanta aynu joognaayey waa meel inaynu ka soo kabanno ka soo waaqsanno ay qaadan doonto cuquud qaadan doonto 10 salay qaadan doontaan maxaa yeelay shalayna qabyaalad baa laynoo isticmaalay maantana dowlad goboleedyaa laynoo isticmaalayaa dowlad goboleedyadan yaa dhisay systemkan yaa soo dejiyey gaalaa soo dejisay beesha caalamka haddaad maqasho beesha caalamka waa dana gaalo waaye aad baana uga xumahay mutacalimiintii soomaalidu in warkooda ku bato beesha caalamka noo soo gurmato beesha caalamka war beesha caalamka yaa waay beesha caalamka ku soo gurmanaysa yaa waay aqli xumaada iyo waxay xumadaada intaad walaalka isfahmi weydeen walaalka ba waxa leedahay beesha caalamka ay beesha caalamku soo adduunka burburisay ma waa adduunka halka dhigtay ma war waxigeena aynu garanno soo ta halka ayna dhigtay ma qabyaaladii reehebel ahayd baa maanta waxa loo bixiyay landis xageed ku aragtay dawlad goboleed dawladii dhexe ka awood badan xageed ku aragtay adduunka xagee ka jirtaa oo dawladii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xageed ku aragtay mithaal qaata billahi calaykum waa idinku dheereeyey kinyaynu hadda joognaa countiga governaha dawlad goboleedka madaxda ka ah dawladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa la soo qabanaa ma tahay mise ma aha Ethiopia waatan kililo weeye kililka ninka madaxweynaha ka ah dawladda dhexe hadduu amar ka soo baxo isagoo jeebaysan baa la soo qabanaa wayna dhacday xagee buu ka yimid systemkan markaa ummadii inta lagu qaybiyay nin gobol joogay uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda sidoo doona ka yeeli karayo systemkaasi yaa ku dajiyay yaa ku keenay yaa ku galiyay ma isweydiis ma dantaada ma isweydiis waa markaan leenahay meesha layna geyrsiiyay godka iyo booraantana lagu riday inaan ka soo baxnaayay waxay qaadan doontaa cuquud aad u dheer iyo juhdi iyo dadaal iyo wacyi ummad wax fahansan oo dalkeeda iyo deegaankeeda ka danqanaysa oo danaynaysa ayay u baahan tahay xaaladda noocaas oo kale marka waxay u baahan tahay muhiimna ah shacabka Soomaaliyeed oo meelaad joogtaan badanihiina garta wacyi iyo fahamna yeesha masaalixdiinana u istaaga ma aha rag iyo hebel ma laakiin masaalixdiina dalkiina iyo deegaankiina iyo diintiina iyo dadkiina sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك